aqoonsigii Soomaaliland ra'iisul wasaare Xamse miyaa sabab u ahaa oo qayb weyn ka qaatay Israa'iilna caradii iyo ciilka ay ka qaaday hadalkii ra'iisul wasaare Xamse miyaa kamid ahaa qodobada soo dadajiyay in ay Israa'iil aqoonsato Soomaaliland koonfurta Suudaanna waa ay soo hadashay waa wadankii lahaa wadanka labaad ee aqoonsanaya Soomaaliland ayuu noqon doonaa haddaba maxay ku jawaabeen oo ay arintaasi uga falceliyeen dhanka kale waxaan kula wadaagayaa cod sheekh caana oo lagu magacaabo jiray sheekh Boqolsoon oo dhintay 25 sanadood ka hor oo sheegaya in Soomaaliland yuhuudda loo goyn doono magacyada dadkana la bedeli doono magacyada yuhuud iyo wax kale la qaadan doono aniga maaha waxa dhahaya sidaas waan kula wadaagayaa codka sidaas oo kale boqor buurmado ninka lagu magacaabo oo waxaan ku hayaa hadda oranaya magacyadii yuhuudda ayaan qaadanayna aniga maahan waxa sidaas leh hadallo proof cad ah ayaan ku hayaan kula wadaagaya soo dhawaada saaxiibayaal intaan guuda galin muuqaalka marka hore like saar muuqaalka si uu meel dheer u gaaro nagu soo bir hadaan nagu soo biirin hagaag dadka qaar ayaa waxa ay sheegayaan qodobada soo dadajiyay in Soomaaliland ay Israa'iil aqoonsato waxa koow ka ah baa la leeyahay marka laga soo tago in Israa'iil ay rabto in ay qaxooti Falastiin keento Soomaaliland in ay halkaas saldhig ka samaysato marka laga soo tago qodobada kale waxa qayb weyn ka ah bay leeyihiin hadalkii ra'iisul wasaare Xamse uu ku garab istaagay ururka Xamaas waan ku daarayaa hadalka oo uu leeyahay Xamaas argagixisa ma ahan cadow waa dad xaq u dirira uu leeyahay kula wadaagi doona okay waa 2023 bisha November waa bil wax aan dhameyn kadib markii Gaza weerarka lagu qaaday marka ila dhageyso Xamaas argagixiso ma waa urur xoreyn oo xoreynaya dalkooda xoreynaya waxay rabaan dhahan falyakun ma yakun ma dhageysanayno wax kasta haday inta hadina laga jaray yeelimayn Xamaas waa urur tahriir islaami sax ah mujaahidiina waay ila aqbalaysa ma jiraan waxaana la gaarsiiyay caalamka islaami waxa laga dhigay inta la isku diray oo khawaarij midan loo soo diray oo qolo walba gudaheeda la isku mashquuliyay oo la cadaabay ayaa waxaana la gaarsiiyay in loo fasira maanta sankana laga marmarinayo Xamaas waa argagixiso dhac ma aqbalayno ma dhahayno heerkaas aan gaarnay kuraastu ha tagto cumrigu ha tagto laakiin waxaan rabnaa inaan dhahno ma yeelin aqbali mayno sida uu Ilaahay ballan qaaday waan hubaa dhiiga ka daadanaya walaaladeen iyo dhibaatada lagu hayaa وبداية التحرير بيت الأقصى أما مسجد الأقصى ما أنت أيوه قدوي بيت الأقصى أما مسجد الأقصى إنه حروب هذا الكاسر رئيس الوزراء حمزة مركب وكهد لي waxa uu ku garab istaagay Xamaas waxa uu leeyahay ma ahan argagixiso ma ahan waa mas'uulka ugu sareeya mas'uulka labaad ee ugu sareeya wadanka Soomaaliya ugu sareeya waa ra'iisul wasaarihii dalka hadalkaas ayuu si toos ah u yiri bulshadii carabta oo dhan baa qaadatay Falastiiniyiintii oo dhan baa cirka la martay cid kasta oo taageeri jirtay ayaana qaadatay adduunka oo dhan ayuuna kala gaaray hadalkan Israa'iil marka arrinkan aad bay uga carootay aad iyo aad u weyn bay ka qaaday marka dadka qaar baa waxa ay cuskanayeen hadalkan oo waxa ay leeyihiin ra'iisul wasaaraha hadalkiisii sidaas ahaa maadaama Israa'iil ay ka carootay aradaas ay ku sugayso waxa ay leeyihiin sida darteed ayay u aqoonsatay bay leeyihiin oo qodobada ay u aqoonsatay ayay kamid tahay waliba qodobka ugu weyn marka laga yimaado inay halkaasi saldhig ka rabto iyo in ay halkaasi Falastiiniyiin qaxootiga keenayso okay hadaba adiga waxa ay kula tahay nala wadaag qaybta commentiga raayigaaga nagula wadaag suuragal ma ka tahay hadalkan dartiis inay Israa'iil aqoonsigaas u bixisay oo ay qodobada u jirto hagaag marka xiga waxaan ku dhageysiinayaa cod nin wadaad ah oo sheekh oo garanaysaan oo lagu magacaabi jiray Sheekh Boqolsoon dhintay muddo 20 iyo dhowr sano ka hor dhintay xilligaasna ahaa nin aad iyo aad siyaasadda Soomaalida iyo waaqica jira aad ula socday nin wuxuu ahaa maaragtay siyaasadda gudaha iyo midda dibadda iyo waxa dhan xaaladda wadanka iyo waxyaabaha ku socda oo dhan kor kala socday buu ahaa marka waxa uu dhageystay maaragtay dad ka hadlaya arrimaha Soomaaliland markay goosatay kadib marka uu hadalkan jeedinayo sababta ay u goosatay iyo cid maaragtay la rabo in loo gooyo oo ay siyaasadaha adduunka wadamada ugu waaweyn ay la damacsan yihiin sababahaas buu soo dhageystay marka waa uu ka hadlay khudbado iyo cajallo uu duubayay ayay ku jirtay cajalladii marka kan baa kamid ahaa cajalkani waxa uu dabaqayaa marka hadalkani waxa uu dabaqayaa hadal maanta oo ku hadlay nin kamid ah dadka laga heebaysto Soomaaliland oo la yiraahdo boqor buurmado hadal uu ku hadlay ayuu dabaqaya iyo maanta dhacdada taagan ee ah aqoonsiga yuhuuddu ay noqotay dawladii ugu horeysay ee aqoonsata
bal la dhageyso marka wax badan bay yiraahdeen Somaliland waan goosanayna waqooyiga inta la lahayn yuhuud ayaa loo goynay ayay ahayd waa soo cadaatay warar badan baan soo bixi raba gobollo badan ayaan maqalay in yuhuudda loo goyn rabo iyo qolo kale waxaan halkaa ka soo cadaatay Somaliland in arrintaas ku jirta meesha waxa ninka isaga uu sheegay oo yani gaalka ah markuu yani arrinta ka waramayay magacyadiina niyad bedeshay ayuu yiri wariyay idaacadda yuhuuddu wuxuu ku yiri ha magacyo xun oo aan sheegi karin magacooda ayuu sheegay ninka isaga ah wuxuu yiri oo wariyay idaacadda yuhuuddu xibnimiyad ka tihiin dawladda Somaliland waxna ka tihiin wuxuu yiri gaalku ha waliba golaha wasiirada iyo baarlamaanka ayaan dad badan ku leenahay oo ficlan siday u hadlayeen waa uu eegyahay warkaas Somaliland sidaas ayaa jirta waxaynan doonaynaa inaanu ku yeelano saldhig iyo meel hagaagsan ayay yiraahdeen waqooyiga Hargeysa oo kale sida oo kale waxaa la ii sheegay inay jiraan 20 nin oo aad isugu xiran oo ka shaqeynaya ayagu inay wax noocaas oo kala sameeyaan dad badan gacanta ku haya hadalkan isaguna waxa uu noqday caanjalado moogtahay marka dhacdo ay dhacdo waxa weeye waxa la soo qufayaa dhacdadaas wax walba oo ku saabsan ha noqdaan wax hore loo yiri ama ha noqdaan wax markaasi la yiri ha noqdaan dhacdooyinkaas wax allaah wixii ku tacalluqa ayaa la keenayaa ajaladan baa marka iga soo horbaxday ajaladan marka iga soo horbaxday waxa ii xigay oo social media sida marka u dhex socday wax yar kadib waxaan arkay hadalkii aan hadda dhageystay hadal dabaqaya oo uu sheegayo ninkan lagu magacaabo boqor buurmadow isagana ila dhageyso marka Soomaalina waxa la wax iskaga kaaya xidhan ma jirto waxay arxan loo gashay ma jirto tayadaanu qalqasana maanta ciidaanu sharaf u haynaa wanaag u haynaa waa Israa'iil waxaanu u soconaa inaanu Xayfa iyo Tel Aviv iyo u bixino shawaaricda iyo suuqyada magaalada wiilashayda Netanyahu iyo hadii aan la leeyahay aan raga la midka aanu bixino okay hadalkanina uga soo horbax waa wixii wadaadku ka hadlayo uu sheegay magacyadii la bedelay waxa weeye oo uu lahaa magacyo aanan sheegi karin baa lala baxaya wadaadku waxa uu lahaa iyo waa kan baas dabaqaya marka wuxuu leeyahay ninkan mas'uulka boqorka maaragtay aadka looga heebeysto waxa uu leeyahay wiilashan waxa u bixinaynaa Netanyahu Benjamin Netanyahu iyo magacyada la midka iyo ragga la midka baan u bixinaynaa jidadkeena waxa la bixinaynaa Tel Aviv iyo Xayfa iyo waa caasimadda koobaad iyo caasimadda labaad ee gumeystaha Israa'iil sidaas buu leeyahay ma ahan anu waxa iska soo aliftay waxaana waa wax sax ah oo aan AI lagu sameyn si caadiyana ah wadaadku wuxuu sidoo kale sheegay yuhuuddu inay ka rabto saldhigyo iyo wax noocaas qodobada hadda jira ee yani heshiiska iyo waxaas ku jiraan waa qodobo sidaas ah oo saldhigyo iyo wax ku saabsan adu waa wax ismaaj gareynaya inta uu ku ekay xaga inta aan kaga gudubno koonfurta Suudaan oo la lahaa waxa ay noqonaysaa wadanka xiga wadanka labaad ee Somaliland aqoonsanaya noqon doonta la lahaa oo dad badan oo reer Somaliland ay arintaas isla dhex qaadayeen wargeyska lagu magacaabo Fox Newsna oo aad iyo aad maaragtay arintaasi u bumbuunay oo yiri waxa ay noqon kartaa wadanka labaad wasiirkiisa arrimaha dibadda ayaa la soo xiriiray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waxa uu sheegay in uu garab taagan yahay madax banaanida Soomaaliya inuu garab taagan yahay oo uusan yeeli doonin wax kasta oo loo soo jeediyo ah inuu Somaliland aqoonsado marka rajadii ahayd wadanka labaad ee aqoonsanaya waxa uu noqonayaa koonfurta Suudaan halkaas bay ku baxday iyaduna marka wixii kale oo ka soo kordhay wadana wadaagi doona aad badmaasantiin marka la soo dhawaado saaxiibayaal aduna cusub tahay dhaafin inaad muuqaalka like saarto si uu meel dheer u gaaro ugu soo bir wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh